tanaade ka soo wareegtay goonisutaaga Somaliland ayaa maanta laga xuseeyay guud ahaanba Somaliland magaalada Hargeysa ayaa waxa ka dhacday dabaaldegii ugu weynaa iyadoo 10,000 oo qof ay isugu yimaadeen fagaarayaasha kala duwan ee magaalada Hargeysa sidoo kale ciidamada qalabka sida ayaa gaardis ku mareeyay jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada Hargeysa iyagoo isugu jiray ciidamada militariga booliska iyo asluubta taasi oo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ciidamadaasi salaan sharaf kaga qaatay xarunta madaxtooyada horteeda waxa iyana isla wadada bartamaha socod ku mareeyay qaybo kala duwan oo bulshada kamida sida ardayda jaamacadaha kuwa dugsiyada ururada bulshada iyo wixii la mida waxa dabaaldegan sidoo kale laga qayb qaatay habab kala duwan oo la yaab leh waxa indhaha dadka si gaar ah u soo jiitay awr loo soo xidhay calanka Somaliland oo si xasiloon safafka dabaaldega u mareeyay sidoo kale fardo si gaashaaman loogu soo labisay ayaa kadla ku mareeyay fagaaraha oo madaxweynuhu salaanta ku qaadanayay suuqyada magaalada Hargeysa ayaa ceeriyoon ahaa iyadoo dabaaldegan maantu uu ku soo beegmay xilli jawiga magaalada uu aad u fiican yahay isla markaasina xalay ay roobab ka da'een taasina ay suuro gelisay in bilicda magaaladu aad u qurux badnaato isla markaasina ay u soo baxdo ugu dambeyn fagaaraha beerta xuriyada oo ay kumanaan qof isugu tageen waxa khudbad ka jeediyay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madaxweyne Silaanyo oo ugu horeyn ka hadlay dalalka dariska la ah Somaliland ayaa waxa uu yiri waxaanu kor u qaadnay xiriirkii aan la lahayn wadamada jaarka waxaanu ka hawlgalnay sidii aynu xiriir dhow ula yeelan lahayn wadamada Djibouti Ethiopia wadamada Iran iyo kuwa Carabta Soomaaliya muddo 20 sano ah Soomaaliya waxa ka jirtay nabadgelyo xumo iyo kala dambeyn la'aan taasoo gaarsiisay shacbigii Soomaaliyeed burbur naf iyo maalba leh una geysatay barakac aan xad lahayn arrintan oo saameyn ku yeelatay mantaqadan waxay bulshada caalamku marar badan isku dayday in la soo afjaro aafada ku habsatay shacabka nasiib darro ilaa haddana looma helin xal waara haddaba waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta Soomaaliya inay u turaan dadkooda danta bulshadana ka hormariyaan dantooda halkuna wuxuu ku jiraa inaad wada hadashaan inaad isu tanaasushaan oo isku tashataan dhinaca kalena isagoo fariin gaar ah u diray madaxweynuhu shacbiga reer Somaliland waxa uu yiri waxaan dadkayga reer Somaliland u sheegayaa dadaalka hakinina hadaalina tacabka laba isku tiirsada gacmaha isqabsada oo midooba gobnimada iyo goonisutaaga Somaliland 100 sano hadday gaarayso madax banaanida iyo goonisutaaga Somaliland waa mid aan laga noqon waana gaari doontaan hibilooyinka insha Allah taala waqtiyada kamida waxaad ka mid noqon doontaan beesha caalamka anigoo garowsan rajada faraha badan ee xukuumadeeda laga filayo waxa ogaataan inuu isbedelka aynu rabnaa iman karin haddaan gacan buuxda laga helin bulshada haddaan cashuurta la bixin haddaan amniga la wada ilaalin haddaan midnimada la dhowrin hase yeeshee ninkii korkiisa biyo kama dhowrin ninna korkiisa biyo kama dhowree waxaad ku kalsoonaataan inaan waxba ka hakran doonin dalkayga iyo dadkayga shacbiga reer Somaliland ee qiimaha leh ee qaaliga ah walaalayaal waxaan idinku mahadnaqayaa sida aad u ajiibteen baaqiyaal ku dhagii aynu u dooranay sanadkan xuska sanad guuradii 20aad ee asaaska qaramada Somaliland ee ahaa inaynu dareenkeena u muujino caalamka ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo kamira dhalinta himiladeena qaran iyo halganka ugu jiro horumarinta iyo maslaxadda ummadeena waxaan ku kalsoonahay taageeradeena ummadnimo waxaan aaminsanahay inuu ilaahay inoo hiilin doono oo aynu gaari doono mustaqbal fiican insha Allah taala ilaahu ila guulee
dabaaldegan ayaa ahaa kii ugu weynaa ee Somaliland laga sameeyo tan iyo markii Somaliland la soo noqotay madaxtinimadeedii sanadkii 1991 Sagal Mustafa Xasan Nuur Universal TV